بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت سوق ليسان هذا سوق عشان ما يدوك سي شير قري إن شاء الله. وأنا أعمل كيساع أو برامج كاردين صور دقي فيسبوك وأركتان إن شاء الله تعالى هدو لها أودي نصيو. وحين كجهد لنا ضدك قربها كنول أو وضع الشيء ما حيهرت يسون عبين. maxaa dhex yaala dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ehelka inta isugu dhow isku diray maxaa mar walba qofkii u dhawaa uga cabanaya muxuu mar walba qofku u leeyahay maxay tooy kii dhawaaba igu xun adduunka igu daran ka ugu ii dhawaa igu dhibaatada badan ka ii dhawaa adduunka ugu nacab oo xumeeyo xumaanteeda ku farxaya maanta barnaamijkaasaan ka hadlaynaa inan baan soo cismay aad iyo aad arrimahaas waliba abwaanada oona gabayda oo barnaamijyada in badan kasoo qayb qaadatay oo caawa codkeeda markaa maqashaan ku farxi doontaan insha Allah tacaala Facebook maxay tahay live-ka ila soo galayso igula jirta khadka telefoonka oo cod macaan oo dumarka Soomaaliyeed kuwa anigu aan leeyahay qof walba wuxuu ku soo baxay iyada waxa loo daayay oo gabayda oo aroosada ka gabayda oo xafladaha tagta oo aad loo jecel yahay codkeeduna fasiix yahay isku darsatayna khulqi iyo cod iyo garasho insha Allah tacaala reer fiican oo family fiican ka soo jeedo isjecel oo wada qacantooda ku wada qabsado oo wada jooga ma sha Allah hadaba aan barnaamijka maanta idin gal waxaan doonayaa ka hadlo dadka isugu dhow aqrab naas leek maxaa ka dhigay cadow leek qofka kuugu dhow maxaa ka dhigay cadow aad baa idin salaamaya maxaa qofka kuugu dhow ee walaalkaaga ee laxmi dambigaagi alla cuntay ee walaalkaaga isku dhiigatiina dadka kale ka xiga cadow kaaga dhigay maxay dadku inta badan isu higaadiyaan qofkii qof walba wuxuu koornay hablo badan bay la soo adwaxay amaalay ka igu dhow baa igu daran hay sheegin way ugu farxaya caydeedu ku farxaya dhibaatadeedu ku farxaya inaan walaalkiis ama inaadarkii ruma baa kule haduu maqlo maanta cadow igu yahay subhanallah waa calaamaadkii la sheegay rasuulku sheegay kaleey salaatu wasalaam iyo calaamaad suqur aragnay iminkana ku weenaabeen aragnayba aad baa idin salaamaya walaalo hadaba aan soo galiyo codkeeda hadda maqashan waa Canabcuud salaam alaykum walaalo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول كيس آدي بنكو سلام ولا بنكو سلام يا عنبعودي برامجنا هالكلام نكودنا إن شاء الله تعالى بنكو سودوان يا حبيبتي قلبي سودو إن أمالي ودوهاي مرة وأكون هاد علينا يا إلهي بمهذا ورتم إسكاله صح سبحانه وتعالى أدينا آدي آدم كوهم هاد علينا يا مرة والبقول الله برنامج كذا قرح ضبطنا قلت كأجنتا أولي بأمالي وحكو أولك نعم مرة ما شاء الله تبارك الله برنامج كأمالي أد عاوز سوجي سوى برنامج آدي بالشر ما أنت وغبغن قفل بوك كمله ما أنت برنامج كتجيستنا بهاي والله وحقيقيا وأنت عقلي لنا أي أركت صفي عن صح أملي وبرنامج آدي هذا وحكو أول وحول بنا وح وما أركت الدرين كلها أنا أباها إن لقى هذا نعم كاب إن شاء الله وأصل لازم دونا فكر كذا أمل مرول بون أنا كورا كل موحى إذا مضمتها برنامج كأمر والبدادية وتهجوي أنا وترجع الله يعزك ما فيسبوك بات كفر دون تعنا تي في ما تشوقنا ما فيسبوك بات كفر ولا لا خير الله بسير فيسبوك تي في مالو برنامج كذا كسر وعاد مضمتها جوي قال لجوس مي أو وحكمت كذا كترجمعية aad baan ku soo dhaweynaa Canabcuuday sii dawaayay khayr Allah ku siiyo aad baan idin salaamay idinka dhamaantiina hayo walaalo barnaamijka boqorka ma haldaadii ya u tahay barnaamijka boqorka ma haldaadii ya u tahay wixii xaq leedahay daha uga rugta wixii xaq leedahay daha uga rugta dumarka Soomaaliyeed way ku dihirsadaan dumarka Soomaaliyeed way ku dihirsadaan Allah daaye ama hal way bahawana Allah Allah daaye ama hal way bahawata aad iyo aad baan Canabcuud kuugu mahad celinayaa heesti barnaamijkeeda aad ku furi jirtay waliga ay allaha TV kala aad ku furi doontaa insha Allah tacaala aad baan kuugu mahad celinayaa Canab aan ugu galnaa hadaba barnaamijka dadka qurbaha ku nool kulay dad badan dhibaatooyin bay ka soo yaaceen qurbahan innagu qurbaynu joognaa qurbaha in la iskaashado qofka kuugu dhow noqdo walaalka oo soo dhaweysid aad iyo aad bay qurux badan tahay waxaad arkaysaa hablo kule ama rag xitaa kule
hadduu kaasi maanta i maqlo uu igu farxaya cadowgaygu yahay waana kii ugu dhowaa gabadh hadday maqasho maanta in adeerteed ama walaasheed la dhalatay haba noqotee waxay oranaysaa waa cadawadeedii ha u sheegin waxaas way igu farxaysaa iyadaaba igaga daranba dadka kale iga fogba marka arrintan qurbihii aad bay ugu badatay qisooyin fara badan oo xaqiiqan ka haya arrintan waan soo bandhigayaa wax walba oo bulshada u baahantay Soomaaliyeed oo laga faa'iiday wax si looga istaago waa iga ballan anigu amaalkaysa cidna kala tashan maayo cidna ma weydiinayo maskaxdeeda ma la tashanaya aqligeyga aan ku soo diyaarinay barnaamijyada marka Canabluude arrintaas maxaad ka oranaysaa waa ugu khayr Allah ku siiyo amaalay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan kaloo halkaan si qaad uga salaamayaa Soomaalida barnaamijkaaga daawanaysa live-ka dhammaantood aad iyo aad baan u wada salaamaya Soomaali meel walbay joogto waxaan leeyahay ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha israacdo Soomaali ha midowdo bointigan amaalay ku ah cudurkan cusub oo ummadda Soomaaliyeed ku cusub markaan u soo laabto ilaahay horta waxaan ka baryaa casiiso raxmaanka inuu naga dulqaado waa wax bulshada ku badan oo aad iyo aad ugu badan waana cudur xun waaye qof dad iskugu dhow oo cadow isku arko oo midka kale ka gaashaamanayo dadkii adiga aad ku gamban lahayd ama aad cadowga ka hoosgal leedahay haday cadow kugu noqdaana wallahi ayadana waa mid aad u adag waaye marka waxaan leeyahay ilaahay ummadda Soomaaliyeed dhibaato uma laabatee ilaahay dhibaatooyinka ummadda ha ka qabto waxaad kaloo moodaa amaalay runtigan aad caawa ka hadasho oo wax ku oolka oo barnaamijka maaragta aad ka hadlaysa wuxuu cudurkaas ku badan yahay amaalay qurbaha waar qurbaha waan sheegayaa barnaamijkaas ugu badan yahay dadka dalkii jooga way ka caafimaad badan yihiin kuwa qurbaha jooga si wanaagsan because qurbaha waxaa ku badan albaabka kugu dhegana qof gaala degan yahay inkaari ku dhacday khayr ma aragtay qof aan lahayna kugu degan magaaladii qurbihii stresskeedii waa meel bara ilaahay og yahay xaalkeedii ayadii oo markii dadkii ay meel dhib badan joogaan oo dhibaatadii oo dhan daris la tahay haddana dadkii aad dhibaatada ka dugsan lahayd marka haddana dhibaato ay isku meel loo cararo in la waayaan bakacaas amaanay Allahu akbar ilaahay waxaan ka barinay aad oo barnaamijkan oo dhibaatadan aad barnaamijka aad ka hadlay dhibaatadan aad ka hadlay amaali aad bulshada ugu badan tahay ilaahay waxaan ka barinay in ilaahay ummadda dhibka ka dulqaada amiin walaasha macaan wadana ilaahay wax wanaagsan isku gariyo waarun amiin ya rabbil alamin anabi waxaad arkaysaa qof wax isu tiino wada horta carabta marmarka qaarkood waxay yiraahdaan aqrab naas liik cadow liik qofka kugu dhow waaba ku mahmaahin baa imka de run noqday wixii la sheegi jiray maamaahu la iskama yiraahdo ma ogto run bay noqdaan sometimes waxuna weeya maamaha run ay jirta iyo maxay tooy bint al-am maxay waa aqarib yani qofka inanta ilmaadeerkati waa aqrabad yani waa dibqalooco kale maxaa marwalba arkaysaa imka inaba qisay soo sheegtay habeen dhawto wallahi wadankay joogto xitaa waa Norway wayna ku jirtaa Facebook qisadana waxay tahay qisada ku dhacdo taabatay oo ku sameysay ilmaadeer rumayeen labadooda aabbo laxm u damigeeda baa waxaan ku sameysay waxay tiri horumarkayga haddii aragto way ka naxaysaa haddii aragto ilmeen aan dhalo way ooyeysaa iyadoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala saa u buuxiyay oo maal haysato oo nin haysato oo guri haysato oo caruur haysata ba anigu waxayga la daba dhigo la dhiga maalintan xanuunsado way ku farxaysaa jiifka sariirtan jiifaleed weligaaba sii jiifo ha kicin هذا وين هذيرتي دروما إلا بدو أبي ولا لا هاي سبحان الله بنت العم ما قرأت واي أمان عذر واي إلهي قد قال ومضى عذر كأن مركا كان أو حسب النمر أمالي وعلى مدها حسب كي كمتها هاي نعم الحسد ما أنت ورالك أما ويل ورالك أما قبر وراشة إلهي ورمتي أنا إلهي وحوانا نعم الرحمن كوامتك وحو بأول هدي أمان تقف ورالا وحو هاي أركت إلهي راسية وسياري صح أما إلهي يوسي قلبي وناقات نظيفك إلهي هو أرتقى marka waxaan leeyahay dadka cudur qalbiyada uga jiraan tirada hebel waxaa soo haysta oo uga xun yahay inuu wanaagkiisana ilaahay ma aragta ilaahay baa siiyo oo u siyaadiyo ugu duceeyo asna oo ilaahay weydiisto intaasaan ma aragta aan naftayda iyo ummadaba ku waani lahaa aad iyo aad okay anabi ka waran qof walaalkaayo kula dhashay iska badaan adeertaayo aad oranayso habeen baaba dhixitaanka yar labada walaasha ukhtik walaashaada walaashaay akhla yiri ama ukht la yiri isu naxaan isu dirnaxaan markay dhibaato kugu timaado hadee cadow kugu noqotana ka war
arrintaas inan baa idin weydiisay walaasheed hadda ruma oo la dhalatay oo laxmi dambigeedii ukhtaha meel walba isku aabiyin isku hooyayin isku calool ka soo wada baxeen taas hadday ku noqotay inuu xaas kala ka war inan baa waxay ugu tiri walaashay oo iga weyn bay ugu noqotay xaas way ka weynta tan yar bay ku noqonaysaa xaasid subxaanallah walaalo is xaasidna lama ilaahay amaanay ilaahay naguma keeno mucjisooyinkaas dadka ay ku dhacday ama dadka ahna waxaa aaminsanaha inuu xanuun jiro amaanay dad badan oo maanta waxaa jira qurbaha joogo inay caafimaad qabaan loo malay laakiin aan caafimaad qabinaa jiraan xanuunsanaa u jeedo cudurrada qarsoon ay kamid tahay cudurrada qarsoon oo qofka lagu ogey ee dharka la sito aaminsanaha arrimahaas ee dharka sito uun buux waaye amaan buux anabay adiga qisaan waxaanoo kale ku soo marin weligaa noloshaada amaanay aniga qiso aad iyo aad iyo aad la yaab lahaa isoo martay haye alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana aan ka gudbay anaana guusha ku dambeeyey because mar walba qofka wax dulmaaya ma guulaysto qofka la dulmaayaa guulaysanaya because ilaahay dulmiga asaa iska xarima annaga dhexdeennan ilaahay nooma ogola nacam saxiix marka way soo martay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana ka gudbay waxyaabaha laysku ataagana waxaa kamid a horumarkoo kale qofkaa markuu maanta tilaabo horumara gaaro horumarka lagalama soo bixin uur hooyo ilaahay baa bixiya nacam marka maanta markii lagu arkay inaa wax yar aad noloshaadi ama horumarkaagii ama ilaahay wax iskugu kaa hagaajiyey qofaan kuu quuraynin qofkaasna waa calaamadaha minul xasad waaye calaamaat alxasad alxamdulilah calaamadaha xasadkay kamid tahay marka waad ka gudubtay sama adigu waan ka gudbay ha aakhirkiina dadkii ifmeeyey ii yimaadeen oo maaragtay oo maaragtay ilaahay xaqa mar walba waa guulaysanaa xaqa wax lamida mane subxaan allah nacam marka alxamdulilah taasna waa kasoo gudba qof bini aadanana waxba kaama qaadi karo waxna kuuma siyaadin karo qofka bini aadanka laakiin qofka xumaanta sameeya mar walba qof walba waxa uu sameeya asagay kusoo noqonay wanaag iyo xumaanta ama ha gaabato ama ha dheeraatee marka ilaahayna waxaan ka magan galnay amaanay ummadda kuway ka nabad gasho in ilaahay naga dhigo marka ilaahay baa annagana nabadgelyo na siinaayo aamiin yaa rabbi alcaalamiin anaba insha allah waxaan ka rajaynaya ilaahay subxaana watacaala inaad arrintaa gabay ka diyaarisid gabay cajiiba oo intaasoo beyta amaanay adiga hadda gabay ka sameeya ilada laakiin qofka markay qisadu ku dhacdo ma aragta waa automatic uu garanayaaba dareenkiisi dhanaada noqonayaba gabayada inuu wixii ka curiyo moogtahay marka ma curisay canabe marna adigu wallahi waa ka sameeyey gabayaan ka sameeyey laakiin hadda madaxayga kuma qorno buugay ku qoran yihiin sax maya mushkilad ma laha maalin kale ka sameeya because of dareenkiyaa la samaynayo moogtahay waa run dareenkii baa samaynaya sideeda dhanna amal qofku markuu wax curinaayo waa inay waxaan dareen ku yimaadaan waaye waa run okay waxa la iska curiyo waxaa ka dhadhan fiican midka dareenka ku yimaada qofkii ka soo baxay wixii uu arkay sida practice oo dabiici ugu jira soo maaha ama uu arko ama la nool yahay aad iyo aad marka hadda maanta markii la yidhaahdo qof abwaana inta loo taga la yidhaha abwaan uu gabay ii samey iyo markii qiso xanuun badan loo sheego abwaanka waxaa u fudud inuu gabayga ka sameeyo qisada xanuunka badan markaa u sheego nacam ee taagan markaase dadkiina ay dhegaysanayaan wax ka faa'iidayaan aad iyo aad marka amaanay inta soomaali weyn cawada dhegaysanaysa ee live facebooka ku jirto aad iyo aadaan u wada salaamaya soomaali oo dhan waxaan leeyahay qalbigooda iyo laabtooda kuwa isku fura ilaahay ha ka dhigo soomaali waa isdhashay waa isla dhalatay waa isku dhaxday dhinac walba soomaali waa wada dhalanay soomaali ilaahay waxaan ka barya kuwa isgarab qabto kuwa isgacan qabto hadda waxaanba ka hadlaynaaba dadkiioo famille iskugu soo ma aragtay jeesteen waana wada barnaamijyadaada daawanay amaana iyo inta daawan doontana waa confirm garaynayaan le qisadan wax caalamka maanta ka jirata waa run waayo canabe waa wax jira waa runta ma insha allahu tacala ilahi waxaan ka baryayaa dad walba ummadda soomaaliyeed waa dad walaalaa xumaanta anigu horaan u sheega xumaan wax laguma helo weligaa yallaa haddaad ku weydid wanaag wax xumaan wax kaga qaadmaysid bini aadam ilaahay abuuray subxaana watacaala dadka isu dhowna inay aad iyo aad isaga dhowaadaan dadka kale waa wax muqadasa waayo qof walaalkaayo kula dhasho aad odhanaysid يعني waa kelmad cajiiba hooyadaa kuu dhasho aabaha kuu dhalay wax ka wanaagsan ma jiro marka please inantaa balan yaro sameeyo kaad maanta waxbaan rabaa inaan try gareeyo
أنا قبطه أوكي مركا إن شاء الله تعالى أنا بيواد أبنكم ما تصنت ولا على كل قبل ما ربعه لكن قبل يجي منه ديارين مركا مشكلة ما مركا لأنه قبل سفي عم سود دين دونا سماها وديارين إن شاء الله أنا بإذن الله برنامج جلوه قد أنا وديارين دونا إن شاء الله إن شاء الله هذا ركون سلامة أنا قلنا آد بنكو سلام يا أنا بعود وقبل برامج كي دور كوين كقبل يجو قرش بدن لا كترسي برامج شو وروح بدن أو قبل أنا يجلس وقايب كشيء عد كنا ويدين كان مقلع يقف كي دوني إنه أراس كلا قطمه برا حفلة سودوين سيسبوتين واحد عن بعود وإديار تلفون كذا ويدينها إن شاء الله تعالى قف كي دوني أنا عد كا قد أنا بهدي مقلع عاو قبل يدي هراد متح ويتصل لنا على عاو لكن هذا وحنا إلى برنامج بس كوسو أفتر وإن شاء الله تعالى برامج كيدو عدك وصل يساعدوا برامج كسيدة ولا لا برنامج كدور كان هندي يا أختي برنامج كدور كان هندي يا أختي وهي أغلى دهاوي هيداها وقربتها وهي أغلى دهاوي هيداها وقربتها هي مركز مغالي هدوي قدي هرصدا الله يعزك مركز مغالي هدوي قدي هرصدا الله داي أمال الله يعزك على بعودي آد بان كوكو مهدعين يا حبيبتي بارك الله فيكي آد بادو مهدسنتي هبين وعنو وناكسن انت عدكاغا دونتن عاودنا دريسن دلو عاو كراهي سماها يا عاود يرحب يا بنت سماها عدكاغي انا قاني معها يرحب السنة شقوي كاي وبطا مكامان إلهي كوفو آد نورو أدنا ولا علم جزاك الله خير آد بنكو سلامي عن بعود وما صنت ولا علم معاني taasna waxay gacan abluud bay ahayd barnaamijkeeda in badan baa youtube hadda ku qortaa idin soo baxaysaa waa gabar Soomaaliyeed aad iyo aad u cud macaan marxalado fara badan ka gabayday moy faarax bay gabay u samaysay hadraawi bay gabay ka tirisay u samaysay ku amaanaysay abwaanada Soomaaliyeed oo dhan dhibaato markuu dhacday ka gabayday calanka Soomaaliya ka gabayday ka Soomaaliland bay ka gabayday mid walba way soo bandhigtay cana abluud insha Allah cana abluud waa gabar aad u qaaliya ila ogaada asxaabay halo salaamu calaykum عليكم السلام aad baan ku salaamay walaal ma barnaamijka mise wax kale ya ay magaca walaal khayr Allah ku siiyay waxaan moodayay businesska ya أحلام baa lagu yiraahdaa أحلام halkaad joogtaa UK أحلام aad baan ku soo dhawaanay xabiibta أحلام kulli imtixaanaha barnaamijka aad 100 goor baad la soo hadasho codkaaga aad baan u garanayaa أحلام أهلا وسهلا حبيبتي مرحبا بيك تفضلي سو دو ما أنت برامج كان أحلامي وحن كادلي ما أنت ما تداوني بملا وحن كادلي ما أنت ولا علو ضدك يسودو محاكد قاعدو أقرب ناس ليك محوك وقفل بحقرنا كيقولوا إذا قال أي شيء يجني قفل بحقرنا ما قبيل كام دوني قبيل كاكل أي شيء وحبا ساكو وكسر نقدنا إن شاء الله تعالوا كقاي أد برضو مهدعنا على بعود حقيقي قبل ما عاو كفلي فربنا يصيروا كديسة من عاو سوق قبطي إذا دائرين وحولا بدل كفريهم أحلامي ما مخشى ما كوكو سوى مركب ما فهمت هذا كان كل شيء جاي والله إيماني وإحنا كل شيء جاي مثلا أيمين إنجليز كا ما تيجوا الرئيس وحن أركي كبر يهوي العلا الله أكبر وحن أركي إتدي كبر إتدي العلا أو السلام شريك للخالي وطلع يصبح سروفيا واي سروفيا ومعجزة وحي الولي ما أركي واو واي نحريت مثلا ذكي نحريت بقى كتبتي وايد أفضل بقولي إن أكلي يوجاني إن أركي يوجاني أنا روح عقد النفس اللي قلبت عقد النفس بقول عادي أحلامي مركب قصوين كأركتي ما واد كنا حد عقد محاول هو عمل إنه يساعدك إلا هيرك يسوق جاران إنه يسوق نعانة ذاتك يسوق نوا يسنعان والله ما قرري وح عجيبة أدونه من منطقة وحيالا شيطان وسحر تبكي خلنا أدونه والله هذا واحد أركيسة أحلام تذكي وحبة يسوق بين بو دباتة بيسوق بين بو استعلبة وما
marka isku soo warbaxaana waa caadi isu dhunkanayo islaamayo caadi laakiin kala fogna oo isu dhaweyn oo qof walba qofka la saaxiibo iyo kiina wixii kala qarsanayaanoo kugu farxan hadda wax kugu soo kordhan kugu farxeen oo koran ma sha Allah ya amal mabruuk alayki maanta waxba kugu soo kordhay Allah ma inankaaga ba ka baxay jaamacadda am so happy about this laakiin waxaad arkaysaa qof wax walba ka naxayo naxdin argagixiso oo taagan qof walaalkii ka cabsoonayo inaad arkeed ka baqaysa wallahi bil xasidku badanta loo tahay nacam oo waxa la filaamay dadka imika noloshii isku oqol ma jirtaan Allahu akbar Allahu isku oqol ma jirto hadda wanaagsan bixi wanaaga jecel male way hadda tahay oo wax uu dhacan mucjisana waa lagu qoslaya qofka waxa kugu mucjisaadu hadalkaagii haddii dhibaato kugu dhacdo ka xumaana ku farxaya muxuu ka faa'iiday muxuu faa'iidaya ايش استفاد waligaa maad aragto qof xumaan ka faa'iiday يا هي هي نعم كوي شارك قصلي هي قصلي ها ومحي كو قصلي ما قبل بوليس كوي كو قصلي waxay ku qosay guriga بوليسكا guriga yimi ku qoslayeen Allahu akbar waana Soomaali الله هي بس كعررت هي وار انت بدو كان حان بدا ما حد نحو اذا جاركاga kugu dhagano ku farxay boliis ku yimi waa mid laga naxaween subxaan allah intii ka ornaad walaalo maxaa kugu dhacay reerka aan ka warhayno jaarkan oo la isu qabanaya qiyaamaha soo moogid aakhiro qofka aqri yani jaarka ku dhow والله كفر عيال ونفسه بلادها عيال ونفسه قول عيال ونفسه بلادها والله dadku moogta wanaag gal ma jecla xumaanta jecsh xumaantum baa laga xumaantum imika ilmeer baa qof laga xidhaya intii u dhaweed oo dhan bay ka qaranaysaa haddii ogaadana waa sheeka laga dhigana shaah baa laga dhigana gurigii la tago waa sheeko hiblaayo waxa ku dhacay maanta uma qasho sheeko anaga wuxuu ku sheegay dadka maanta Soomaaliya ka yimid dadka carabta ka yimid dadka carabta ka naxan dad way dadka Soomaaliya ka yimid nafsi baa qabaan والله I don't know أنا ما أنت تقدر أقول حقوق الله ما كشف الله تبارك الله كو باركيه صح كتبنا الله الغرمة يا أحلامي أنت أظن واحد عرباتها أنا لا أبغى والله بس فاهمين غير هالكي غير إمارات بنا غير إمارات أهل الإمارات ما تسمع ما شاء الله عليكي إمارات بنا أنا بذكر أهل الإمارات بس كنت الله هي أدت بحكونا عن وسائل بكرينا دوح عن حد ويا سميل قبيل ما هاي ما شاء الله شيء ما أقولين صح دتك واسكا حبي حديقة بتيجي شيء عن شري حبي بنقص عن شري والله ما شاء الله كلامك صح والله سوالف تبغى مرة لا عشرين ويقول لك سوالف حتى على عرفت ما أنت مرتين اسكو أفكتينا وذا صوّد مرتين اسكو لصوّد عشانه أصحاب هذا كل عايز كراسة سومالي بقى ده تفهم وإذا كان بنتها كحلو يمني مصاري والله هنقول تاني هو أصحابنا وسكول واسفة عني أدوك واسفة أمانة نعم وارمتها والله بلا أحلامي كلامك صح يا أحلام يا دتك ما تعيش ملحة واسمه وحكون أنت واحد في عن إن الواقع يصيرها وحنا لك شيء نعم I don't like the people like talk about the people and ما تبريس ونص علي الآن ونص علي ونفر دي ومركو كبحي حن عقد وحرام سبحان قرت قفك على حمر أي استجوا حلقة شفية دم بيجي صار دم حلقة شفية محيط وحيابا بدن يسوق سمين شرا قفك كلا صار إلا بدأ ملك بدي قرية ما أنت سبلا لقى قاضي استجوا صار يا استجوا وناجي سلا لقى قاضي لسنة وحول بقفك السمي كاكلا كقاضي مركا ضدك كهاد لهرت يكتار تلي أوجادان بس يعني بدي أوجان لا ما بحط لهم بس ما أوجد لكن وين أوجد ما والله أدي إمك كبري ردي بحال إمك وطن كتشوفني وطن كتشوف سميت معه صح إنجليز كطفى حصاري يخبر شيء حصاري شقوق حصاري ماشي نعم طفى حصاري سمعت طفى حصاري أولادنا يا غاليين بعوق صح بس والله حي كشف يعني نوش الماء دك كشف يعني is not good سبحان الله والله لا في عيب تاستر رسول الله بقول عيب تاستر هو يا نهي ما الحمد لله مجعلين الماء كان حموينا كل شيء مجعل صح الدنيا دوارة أدوك وصورة الدنيا دوارة صح وأساس الدنيا دوارة توا صح وإمسا كل عدد بني آدم وقف يسوي كقص لا يسوي كل عدد how many millions and millions هولي قبل عيشنا قبلها لا المثال عارفين عليكم السلام والله ها صح معتقد ما في عنا واحد في عندك الأمان أطلسية صح واضح اوكي
أحلامي أديك مركا عد محاتر سومالي وان كعرابا فردان كعرابا كعرب وحي حلونا كعرب وحي الحنبة كعرب وحي وانا أكسنا بلاد وحبات كفا إذا سانا الله حليب يا صح وحي حلونا كعرب أحلامي وحي حلونا كعرب اوكي dadka waxa ku sameynaya ilmaadeerada ama ilmaabtiyada ama edooyinka ama ahalkooda cadow ku ah kuwa maxaad kula talaleed walaalo wallahi waxaan filanaa waxayna qofku inuu clean iska dhigo oo happy iska dhigo oo dadkiisa xiriiriyo because diinteeda ku jirtay ina saamka xiriirisi ina dadka xiriirisi ina waalidka ifaamka dadka walaalaha oo dad xiriirisi weeyaan oo dadka alla xad iska siisid haddii ku xumeeyo qof inuu ku xumeeyo wanaagsan soomaaha ina xumeeyso ma fiina wallahi haddii ku xumeeyo haddii ku soo raad ku soo noqon qofka bal inta badan waxa jeclaan lahaa inuu isaan edidii waxa ka joogto ma huruub karo waa adag tahay hadday eedadaa xunta ka waran nuuruuf lahayd hadday eeda xun tahay ما شاء الله فريد ما شاء الله عليك والله ما مسكح في عمك وجرت احلامي ما شاء الله عليك وارو نعم نعم تاسع بينها يضع حشون تدوم النقطة سواء صح الله يله أرفع عم نعم 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 waxaad igu samayso oo qiinooti wax muqtarayso ana ima xaqaatin micjid badan oo wax lagu sameeyo tan ma qibalo salaatu wanaagsan lagu dhaafa ila xasbi allah wa waqib wala qofku ku xumeeya حسبي الله ونعم الوكيل نعم حسبي الله ونعم ادي وارنتا ما شاء الله احلامي الله يعطيك العافيه احلامي اد بنكم مهد عندي احلامي سلا وناكسنا دقلا قيب قاطي والله الله يكتب من امثالك يا رب قولي امين ان شاء الله يا عمتي الله يخليك ان شاء الله وياك انت حبيبتي مع السلامه مع السلامه اد بنو مهد عندي احلام ويوكي سو دراعيسay oo idin barnaamijka kala qayb qaadatay xaqiiqda waxa tahay xitaa idida idisho wax walba igu samaysto si walba in cabta madaxan hoos u dhiganaya marka iga dharagto iyada wixii shoonayso isla yaabisa waa hadal cajiiba dadna way la tirsadaan anyway ka gudubna halka waxaanu ka hadlaynaa waxyaabahan oo dhan horta aynu ku jirno qof walbo ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala waliba hore ku sheegay arsaaqada ilaahay baa qoray meeshu mara ilaahay baa qoray laakiin maanta halo salaamu calaykum salaamu calaykum aqabtu taanku salaam walaalo aad baan ku salaamaya walaashay macaani magaca khayr allah ku siiyo waa منى حبيبتي اهلا وسهلا منى والله صرت متابعه على طول صرت في عم بدريها فيسبوك لايف ببرتين الى صاحبي الله يعزك يا منى اد بنكو سلام يا ولاشي قالي منى او جوجت منى احمد او جوجت فروم يو كي هي ما انت منى وحن كان ما لا سقطا هذا سبحان الله كور القف كله ولاشا المادرتين او ادي كاحن او كنحب oo ilmaadeertiin ama habar wadaagtiin ama eedadaa dhashay oo isu galayn oo isla hadlayn oo isjeclayn oo wixii kugu soo kordha ku farxayn xumaantaada ku farxaaya inan baa warqadii soo qortay dheer waxay ku tiri igu dhow qof walba wuxuu qofka igu dhow iga qari isku qolaane iga daakaas kuwa kale dadka kale la dhaamaayo kuwaasina caayma kuwaasina caayaan ama igu farxi maayo saa maxaad ka adigu walaalo munay الله أكبر الله أكبر هي واي محاط وقوع عن مناي محا وقوع عن والله المعاني محا وقوع عن وعقدة نفسية صح عقدة نفسية نعم وارد الله أكبر الله أكبر ها منى صح منى محاضرة أنا دواب الخراب الله شيء ما صومايا بس هذا قفك كحماية محاوح معانسي محل أورنج أحسن تلاقات وهدو ضمير لي هذا مقنع أيوه سفيع نعم وحشودو تسليا ولا قفنا ولا لا حمينسي قصه كانتay nin baa bari nin la saaxiiba shaqay ka wada shaqaynaya shaqo waxay wada ahaan labadu waxay carabay ka dhacday waliba marka engineer buu ka ahaa shirkad buu haystay ninkaasi
saaxiibkiis buu keen waxa lagu yiri shirkadda waxa loo baahan dhowr qof oo mutacallimiin oo ku takhasusay waxaas waanaad keentaa malaa nin saaxiibkiisa ugu dhow oo shaqadiina u qalmay oo dee subjectka shaqada takhasuskeedii waa buu keenuu shaqadii siiyey mar allaale markuu shaqadii siiyey hadda waa kii uu keenay hadoogow uu meeshii ka shaqaysiiyey uu wax walba tababaray uu isagu in badan xitaa waqtiga la qaadan jiray xitaa waxyaabaha loo soo diray isagu la qaybi jiray uu la samayn jiray uu ninkii de carabka ka dhaadhiciyey waa inaadeerkee baan keenay saaxiibkee baan keenay baa ninkii ku noqday xaasiduu ninkii keenay ku diray shirkadii ku ninkana shirkadda musawaq buu sameeya waxbuu warqaduu isdhaa dhaafiyaa oo lacagaa laga waayo isagii baa waxaan qaatuu ninkii kiis ku furay ilaahay baan kugu dhaashay balka waa kuu keenay carabta ka dhacday waliba dooxay ka dhacday waa berigaan joogaan malaa 30 sano ka hor arrinta aabahay baaba loo keeno dhagaha faraa geliyay aaba wuxuu ka shaqayn jiray marka immigration officer buu aabay keenan jiray dooxa qadar moogta airportku dhan buu aabay haystay aabahay baa lagu yiri garta haddaba adigu maadaama aad suldaankeeda galay adigu wanaad maxay tahay meesha hagaajisaa ma garatay waxa aab wuxuu ku yiri anigu ninkana waan garanaya kana waan garanaya horta kii hore keenay inaan kii horta keenay uu qaldamay buu yiri inuu ninkan keena ma ahayn buu shaqada waayo ninkan weligii buu ku nabcay buu ku dhaab runtu u sheegay kana buu ogaana khabar khayr baa uu iska jiifay marka wala adduunyada dhibaatada ka dhaxaysa ninkii baa waxa lagu yiri shaqadii kii dadku way kala qof walba waxbuu ku mutakhassis moogtay marka ninkii company-ga lahaa meesha haystay isagu maqnaa riyaad buu ku maqnaa suudigu ku maqnaa riyaad wuxuu yiri arrintan ilaa intuu ninkii soo noqonay arrintan kii kale uu sii eriyay ninkii uu fanashta uu ka saaray shaqadii kii weynaa company-ga lahaa baa yimi markii company-ga yimi wuxuu yiri ninkan intaasoo sano 25 sano uu ka shaqaynayay meesha xitaa maalinta lacagta tacwiidka xitaa marka la siinayo qofkii la yiraahdo lacagtaas maanta lagu siinayo tacwiidkaayo shaqo fiican baad shaqaysay hawl fiican baad maanta u soo gelisay shirkadda soo gelisay faa'iido fara badan baad company u soo gelisay lacagta xitaa la siiyo uu diidi jiray wuxuu oran jiray masaakiinta aanu siinayo fuqaraa marka ninkii baa la keenay kii kale uu eriyay markaas dee dadku markaa adiga la damiir bay leeyihin dad waxaa jira jalaskaas waa jira qof waxaa jira aan ku wada sheekada waxay ku dhamaatay ninkii haddaba isagii waa la tarxiil baa lagu sameeyay Soomaaliya waa la tarxiilay khalaas wadankiisa uu ka yimid lagu celiyay isagii reerkii oo dhan waa la mustaafiriyay ilaa bini aadamka ishu waa cajiib moogta qofka walaalkaa ku hagaajiye ee wax ku qabta ee ku soo dhaweeyo ku soo ee ku soo saara ee heer ku gaarsiiye xitaa waa inuu mar walba xitaa wixiisa ku qabtaano xitaa khidmad qofka aniga wallahi irbaduna ii geliya weliga ma ilaawo amaanahan سيريس يعني بكور قف ايش اسقي غير كيس ولا اسمه مسافر على طول خلاص طلع من قف كده ما يكون كياني بعد كل هذه السنه شركه تسويق سميو وخيانه سميو لعك لقاقات لعقها اللي تدخل كون بقى وحن قاعدين جري وحنا اسكو صباح ما قدام ولا اوغاد وحي العقا قاطي نعم ما شاء الله هاي ما انجليز لفتي حنطر لس حمله هيلك ولا كاسو قيدنا لعنايو هي أنا ما أبتدأ ميل بنترفيو كلها بوقتي وأفرت ميل إلى بلنصنع والله وبالله والله ومقع إلهي وصدحنا وانا هبين جمعة وصدت سوق ليسي أنا وصلام تجيت حتى لما دافع قفك حتى جيت كان سلامة إلهي سبحانه هوسيو كربي أكت هروف كسانك مصانك السلام عليكم أنا وحقول السلام عليكم بنقول مكاسي والله أنت حشوتي عليكم السلام أنا جبنا حي قفك محل لقى إيه يا وابن آدم إلهي أبورتو عيد النسبة بسم الله الرحمن الرحيم والله وعجيب قف والالكا يوم مسلم طريق مرة يسائل يكل قاعد ما بحال بان ما وحنا ضد وحنا بالكور تمام قفك حرب إلهي حرب وكذا أما هذا حتى قاونت محل وحبها إيه ودا إلهي ودا بني آدم كإلهي بالودا قف شاش كريه مثل دونك قفنا حكمه كشاش كريه حكم وصار معه والد بكساق حي نفتي سجى قرنا وحنا صمينا لكن
naf yaroo adigoo kale kaa siliidatoo kula dhimanayso baktiyaysa waa laga fiicay maalin baa maalin baa amba xitaa mid bari dhexaasa moogta anoo xawaalad ka soo baxaya 3 naagood baa taag 3 haween baa 3 dumar aa taagnaa markaasuu ku leeyahay أنا يقول لي المتي فنانة ديبا متي فنانة ديبا تي هذا وان مغليا هذا وان ستوب بس بيتاجين دكان كانوا كطريق وسألت تاجين بس أصلا تاجين إنا بابك إنا سعتي أنا وحنا هرت أقول في عنها يدك وأنكم خذوا كعبك خطورة وأنت هدو قولي قلت له أنا وسكر باش لان ورانا محا وحنا كقول عن واي وقف كان وين استعلي أنت الحقيقة ضرمتها أنت أصلا نقدان كل وار أمل كيسان فنانة دي مية مركب وحمر إنسان صبح قفاتيني إسرائيل وحا حلنتي عبايضو جلبابا حلنتي حشوضة قف والكاي هكي شيء وح محا وحا فرطة ما إيه أنا ويدسان سؤال شو منكو أكتر أغني وحبا هدا وحا ممشي متر والله ما في أنا محا لغب مركا محا لغب إيه كلا رنتا ولا والله waxa laga bixi karaa jawaab aan xisaabinta wala lama oo soo sida dadkooda waxtaan ku dalbuud leeyahay أيه waxaan la qabtay ku sameeyaa la wanaajiyo هلا وناجيو hadda dalaca ku sameeyta ama wala taa ku sameeyta wala أوكي dadka ahalka munay walaalo dadka ahalka ay wada dhashay ee walaalaha ilmaadeerada edooyinka ilmaabtiyaasha cid walba in rasuulka calayhi salaatu wasalaam inama almu'minuuna ukhwa bal wadiir kuwana waaba kasii xad jiraanba waa aqaaribkii kugu dhawaa kuwa isu xanaaqsan ama isu dudaaya ama dee waxaa laali wax dhex marixta ayna jirin baa laga yaaba sometimes waxba jirin baa laga yaabay koraan duruufaha dunida oo marka la sarfay isku dhunkado kuwa ayaka maxaad kula talinayd walaal khayr allah ku siiyo نعم الله أكبر الله أكبر سماها وارو الله يعزك آد برمنا كوكو ما دعلنا ولا معاني صد برامج قال قيب قاضته جزاك الله خير ألف ما يكيد كلا صدق ده ونقول ضمبين سو كامل هيك تكاس ده فيسبوك وسكري كده أما أنا كل صهد من مرحبا أنا كل صهد مكان كبح ولا مهم جدا خصوصا يا ولا آد بنكون سلامة جزاك الله خير aad baan ugu mahadcelinaya asxaabteeda ku jirta Facebook marka hore inaad salaamaan doonaya dadkii ka soo galay gadaal dadkii hore ila bilaabay intaba waa mahadsantii walaalayaal qisooyinkan waa qisooyin soo noolaabta oo runtii nagu soo noqnoqda waxaana fiican dadku ahalkii intay nool yihiin ba wax la suuyay markaad dhimatid qof walba xisaabtiisa isaga ilaahay baa kaas waba dhintayba khalaas maalinta sidaad u dhimatid qofku kuma soo noqon marka wax fiican laga faa'iideysto qofku intuu nool yahay in dadka wax suu'i kala faa'iideystaan waa wax muqaddasa intaad nooshahay ka faa'iideyso walaalkaaga la sheekaysatid ka faa'iideyso intaad nooshahay walaalkaaga jeclaatid ka faa'iideyso dada inta nooshahay ka warhaysid inta la nool yahay la iska warhaya maalinta la dhinto qofna caruurtaada haddaad ka dhimatid kuma xasuusanayaan bari qof walba intuu nool inta la nool yahay hala kala faa'iideysto marka la dhinto waa la dhinto qof walba xisaab baa gelaya tiisba yalla ya nafsi qof baa ku taagay yalla ya nafsi u leeyahay marka waxa fiican in maxay tooyeen inta la kala faa'iideysto sheekadan yurub waa la ogyahay dhibaatooyin fara badan baa yaala burbur badan baa dadkii soo wada maray maskaxa qaar baa xitaa ka xanuunsanaya xanuunaya dagaal soo maray oo xanuunkii dhaawicii dagaalada xitaa ayna weli ka soo kaban waddankan jooga oo wixii sas ku noqdeen dad badan waxaa jira qurbaha cidla ku nool baa jiro laba guur albaab iyo dee maqsin isku soo xidhay oo guri keligood ku jiro carruur dhalin baa jiro iyakana taasina walbahaal kale usii dheeryahay iyo qaar kaloo badan laakiin arrintan qurbaha inaga haysato waan bedeli karnaa we can change innaka isbedeli karnaa hadduu qofku isugu isbedelo uu from yani mar walba hadduu ka bilaabo xitaa beri ka bilaabo isaba qaban kara qofku waxba yo oran waa too late wax too late ma jiraan qofku hadduu kaa qaldanaadana insha allahu tacaala waxa fiican qofku inuu isagu ka wanaagsanaado qofkii qalad kalaa isagoo arkay inuu qofkii qaldimka sheekada idinka sheekeeye ka dhacday dooxa beriga aana ku deganayn wallahi weliga ma ilaawo sheekadaas mar walba soo noqnoqotaa yani qof inaad walaalkaaya oo ku siiyey wax oo ku soo saaray oo qof kaa dhigay oo heer ku gaadhsiiyey oo meeshaad wadiya waxaad ku noolad kaa soo saaray inaad ku noqotid xaasid ma wanaagsana waa kan ninkii dhammaa shaqadiisii carruurtiisii waa la fadhishay waddankii baa lagu celiyey waayo nafsigu waa cajiib nafsigu wallahi hadduu raagiyo hadduu soo gaabto imika waa deg deg buu ku jiraa saasuu duulay isa faraska marka waa la iska helaya arrimahaas waa la iska helaya ma wanaagsana xaasidnimada ma wanaagsana qofka xaasidkana ma yaflix weligii ma hagaaga xaasidkana
هلو السلام عليكم ولا هلو السلام عليكم. aad baan kuu salaamaya walaal macaan adoo ka hadlay Copenhagen walaal soo dhow magaca khayr la ku siiya walaal amalkiisa aad baan kuu salaamaya walaal magacayga xamda la yiraahdaa xamdi walaal horena waad la soo hadashay soo ma macaanay xamdi ma ii walaal ani hore kulma soo hadlin barnaamijkaaga waan daawaday laakiin waa markii koobaad aan jaan su'aaleena kulaha aad baan kuu soo dhawaanaya walaashay xamdi aad iyo aad baad u mahadsantahay lacag baad ku hadlaysaa walaal qalbiyay hore u gal barnaamijka saad u aragtaa walaal maxaad ka oranayd barnaamijka walaal hadda la socotay khayr la ku siiya walaal horta barnaamijkan horta maasha Allah hawl fiican baad haysaa barnaamij qurux badan walaalay iladan dadka haysata xaasnimadii horta markii dalka la joogay lama yaqoonin marxaba waa wax markii halkan la yimi ee qurbahan la yimi dadkii ku dhacay nacam qofkii markuu qurbaha yimaadana dhibaata iska haysata صح wadan cusub buu yimi waay maxaa nolol cusub buu rabaa inuu bilowdo waay marka dhibtu waxay ka haysataa baan anigu u qaatay markii aan arkay qofkani intii uu isagu noloshiisa bilaaban lahaa oo tiisa ku mashquul lahaa oo balaaniyo qorshayaal samaysan lahaa nacam wuxuu ku mashquulay qof kale صح الله أكبر marka qofka bini aadankana intuu qof kale ku mashquulsan yahay dad horumarna gaari maayo tiisa iyo tu kale tan waxba u qaban maayo waarun marka xamdi maxaa lagaga baxaya arrinta walaal qofkan siduu daba qaban kara inna wala isdaba qabto qofku intuu nool yahay intuuna la xasuusan inuu is xasuusta mana inuu isdaba qabto waarun anigu horta hal mid baan usoo joogay ogahayna horta haddii adiga lagu xumeeyo iyo haddii lagu dulmiyo iyo haddii dib lagu geystoba horta qofka bini aadanka wax kasta waa inaad ka filato nacam na waa bini aadame mana waa bini aadan ma aha inaad la dhowto markay dhibtii aad kala kulantay adigu wanaagun kula dhaqan dhinaca wanaagsan ka eeg bini aadan baynu nahay mararka qaarkood waad xanaaqaysaa falcelin baa kugu imanaysa qofku muxuu sida waad u jawaabaysaa haddaad doonto laakiinse haddana inaad wixii intaad adigu tiraado okay qofka sidan buu sameeyey soo maha haa dhibkan buu kugu sameeyey haa sax okay walaalo haddana wanaag ku wada socon kara weyna bes bannaankaaga ka mar siduu kuula dhaqmo weliga hawla dhaqmin waxaan xasuustaa abtiga ilaa khayra siiya ayaa maalin wuxuu siiyey talo aad u wanaagsan wuxuu ugu yidhi haddii aad aragto qof adiga wuxuu kugu sameeyey weligaa ha u jawaabin buu yidhi الله أكبر الله أكبر haddii aad u jawaabto buu yidhi barbaraad tahay maxaa isku dhaantaa adiga qofka isku mid baa tihiin ما شاء الله تبارك الله وأرم في عام كأمس from that day I decided qofku hadduu wax igu sameeyo bes haddii maxeeda qofkan dhibtaas igu samayso maaha bes wuu xumeeyaha wuu xaasiday noloshada buu ku mashquulay waxa laga yaaba qofkan inuu isagu nolol samaysan kari waayo الله أكبر waxaa jirta marna anigu islahaaba igu dhacdaan isiri mala qofkan wuxuu raadinaya sidkuu nolol ku raadin lahay bal adigu isku day inaad caawin karto yani sidan uu fikirayaad ka yara bedeli karto نعم laakiinse laga ilaahay waaliyaa waansan way adagtahay dadkeenu say isku bedelaan waxaa laga yaaba inuu kuba qalabta ama qofkan uu qaato inaad yesaysid ama qaadkaada u wado uu si kale isaga u qaatoba marka insha allah dadkeenu wallahi walaalo dhibaata haysata qax baa lasoo maray dhib baa lasoo maray qur baa la joogaa waxa fiican gacmaa la isqabsado isku mashquula maaha dhibaatada kala jirta waxa weeyaan waxaynu nahay society-ga dadka adduunka hoos loo eegayo absolutely wadiyarada gaarka loo samaystayba fiiro gaaraa lagu eegaya adigu ambassador baa tahay soomaali oo dhan bad magaceedi sida tahay nacam نعم لورن باي كان واهب لا يكن واهب لما أرنايو الله يعزك وحونا ين أمباسدور كنا تاي ما أنا سيد وأنا تقربته نعم أمباسدور بتوقف مثل ما بتاعي سومالي أمباسدور بتوقف سومالي بتاعي وهو ين إنه هنكا ودا سقف أدنى في التطو الله يعزك تعرف وعنو أركا هذا دوري شنو قف دوري رميري كارو نفط هذه الشرع ينفط هذا ما تسافرني ما هو قف كنت كبر بردقيش وقف بني آدمي ها أدو اسكو مشغولة أدو مراد تاجلو هبين يا مالو محا كادم محا كوسو كردم محا كاسي محا نورش هذا أنت حسابنا بدليسه إنه والله وده تجيه وحى إنبا الرمبا رباكن أكشيبه قبل عربية صاحبنا هاي ولا شيء أو فنانة ذا ترته وفنانة واللي ما يضم الدمر كوكله أطنطا حق الدمر كوكله تبع الدمر كان رقصه ما قرأت ودي من ضمن تايد جيسو حال ما هبن هريدي مثلا ولا شيء بمكان يرسم شيء قلت لي أختي ماتت يدو يعني سيدو عيار السي مركبي وحون بكو دغ halkaas lagu dhago cunaa gig waxa tiri waxaan mooday in deena
يرحى أما ده وحون ده يعني خير إسك إيزي هالكي كسوك عويدي بقى يعني قفك قفلة ده ساعتها يعني وحن كشدي قفلة أضو قفك حماية أما حاسدية أما ظلمية أما وحكو هي با كوي من كرتا موت القفلة كوي من كرتا سبحان الله وصاكو خبصن كرا لحظة إن لقوا مشي يقول مرة تمارة دمان سامان لا يسيد يرجرو صلاة ده يجي محل توي صكا يجي كان هجاجو كان وقف البولوش يقرأ وسمع له موت إن الوقت جاء قف بينه سميت قرشة وقت جيسة كفاية وارد تعرض هذه قرشة سميت وقت جاء كفاية وقت جاء هبلاية ويا ليسو هبلاية كانت تدور يستنيسو وحكو دامو كفاية أما ده ها عرور تاري قولي جاي فاني جاي ما شاء الله ما شاء الله فحتى إذا هبلاية بكذا اللي يشيء ها أما كعوناني ما حان كانوا كفاية أنا على الحما إيه بلا يجتو يدا ويا عروتي أما فاميلي ما أنت كار لأن ضدك كوجودو لا حريت مالين بقفة تجاي مالين بقفة لسوشيال مالين بقفة هودا كبحية مالين بقفة قبل لو سيرية ساسا أنا وضع دمبيسا أما واحد دون تدها واحد دون تسمع قفنا غاني متشلو وقت اللي قفة دي وقت قلوا عتشيم وسحب بو عريا وضع عكيبي مال بقفة لسه نعم مالين كنت قفة وسوشيال شبيه بالكاجوان ملايين يفرد الملايين سبحان الله نعم تابا كانت تي أدوم تي أخرى كذا بس marka mina ka fiicnay mana qof walba intuu caawa telefoonka qabsano kulaado walaalo in badan baynu kala aamusnayn walaalo macaani in badan baa iga xaraaqsanay isaamax ramadaan baa cala abwaab nagu soo socoto waxay nooga hadheen bila yar ka hadheen isaamax kaga horree isaguna jiray amaanay ahaa dadka muslimiinta saddex habeen wax ka badan inaanay لا تخاص معها 3 أيام 3 ليال ها wax ka badan 3 waqti 3 saac 3 cisho wax ka badan qofka khisaab kun inta ahaadan maaha inta badan marka dambe waxa khayr badan qofka salaad horjaaba abs waliga ya allah waxa oran jiray qofka kaga horeeya dadkan khayr in adigu salaada ku bilowdo khayr soo ku tarta ha laga yaabo qofku inuu soo oranay qofkan waa daciif isagoo daciif wuxuu goori way ka wala way qadda hadday iga baqan may soo way ka baqda kana ku sheegay soo waa telefoonka adigu qofkan fiirin gifkiisa iyo wuxuu qofkan isleeyahay ka fikir واي أدوك جمالة تبى لنا شخصيات بلنا أدوك وقتها واحد وحنا سميته ما أدوك كلها كذا قاعدة صح وحوي أجر بدوني شو إلى من الله بدون كل وحكا لا بس أجر نعم صح ويا ملالو والله التليفون كوكو دير راضي ولا معاني حمدي ولا آدي آد بضم هتصدق ولا جزاك الله خير ولا غيركم من السلام ولا برنامجنا قروشة بضلنا إن شاء الله وكم هتصدق ولا آد بضنكو سلام يا ولا شقالي جزاك الله خير في الله آد بنكو سلام هذي ولا شكرا حبيبتي حمدي from Denmark آد بوم هصمتها بلاس وضع العقب وضع هذا الأيام بالكن واتساب كيس وقت هذا مبقل إيه لو لبض تليفون كي هروها الحمد لله رب العالمين لكن أنت إلى صهر لسايقة بدن waxaan hadaba u sheegayaan waa qof walba telefoonka caawa qaado ha kaga horeeyo walaalkaas sanka u taagtid inaad artaad fiqo u taagtid edadaad caydid amaad cadaawo u qaadid amaad ka aamusnaatid waa waalidka horta isaga maba laha dembi waa waalid ama ha xumaad ama fiican hisa waa waalid waa waajib adag waad ku khasban tahay waalidka inaad ka dambaysid ama ha weynaada ama ha yaraade waalidku waa cajiib waa la iska ilaaliyaa tan maxay toy aamusnaanta iyo xaasidnimadana qof walba wuxuu yahay gurigiisu muu kala yihin haddaad xuntaana hooyadaabaa kugu dhashay haddaad fiicantaana hooyadaabaa kugu dhashay haddaad qaadactaana adigu faamiliga guriga umad kala timi wax walbo qofku sameeyo xunba faamiligunbuu kala yihin baan u aaminsana laakiin hadduu qofku dulqaadkiisu badan yahay wanaagiisu badan yahay soo dhaweyntiisu badan tahay dadka dulqaadkiisu badan yahay kaasi faamiligu kala yihin mar walba baasaboorkaaga markuu shaan badanaya waalidkaagu baa shaan badanaya بيئات في عادة كتمت بيئات في عم بتدخل كلها دخل مكانها هدي عاد حمان يحاسد ما كوسا كرتي هو إذا يابها يكره كلام محاسد ماذا مركا يكون بعد مرة بقطع هذوك ريفرنس أو حمان إنسان مركا بليز ولا عيال وحبايا الإسحاسدين وحبايا محيط قربها ضدك كلا كحان قربها ولا جت جيا مثل جو عصود كل انت يمتك هاجرابة قفل بإله بان ماشان سوق يعني شغلنا كأنه لكن ضدك ويكلا فايدة إنسان ضدك كلا ويسجعله ويسود دويا way maxay toy dad kale iska kaashadaan dadka kale oo iska taageeraan inaku laakiin qabyaalad baa kor iyo hoos naga dishay madaxa oo ina gashay oo aanu garan lahay goorta la fahmi doono waxay tartanaynu garan weynay maxay toy
jaarkaagii oo kuu dhow oo xaqu naas liik inaad koobkaa biyaa kala qaadataan isuma gelaysaanoo waxbuu iga sheegaya waxbaa dhacay baa la odhanaya gabadh walba dhibaatada haysata gurigeeda haysata keligeed ba isku soo koobtay xanuuno badan baa ku dhacay cudurro fara badan baa ku dhacay balaayo dhan baa u timi laga yaaba gabadhaas haddii nafisi lahayd ay jaar fiican haysan lahayd ama qof wanaagsan oo ay ku nafisto oo asturaaya fi nafsi waqtina caawinaya inuu xanuunkaasba ku dhacin laakiin qof walba imka bac buu jiidaya kiniinaa maxaa u keenay qurbaha u keenay iyo xumaanta iyo xanuunadan qarsan wixii aad qarsataan way ku qarsadaan marka waxa loo nool yahay in lagu noolaado nolol yaro habiya oo wanaagsan waayo waad ka tegaysaa aan xaqa bini aadamka aanad cunin xaqa walaalka aanad cunin ka dadka aanad cunin ka naftaada aanad dulmin laakiin adugu noqotid qof iska mas-uula dadkuna ka amaan helaya taase waa farigiis noloshoo dhan baa xayaa noloshanan sheegana waa nolol cajiiba dad baa lacag haysta oo maanta raadinaya caafimaad ay kusoo kacaan ay sariirta kaga soo kacaan ama hawada ku arkaan aduguna lixaad baa ku dhan waxaa laa wax kaa maqan ma jirto laakiin waxyaabo bilaa macnaa xaasid iyo waxaan loo jeedin iyo kanaa kan igu yidhi iyo ma yinfac waxaasoo waxba sheegi maa adunba naftaada u daran tahay hadalka waxaan ku keenay qisada inantu isoo qortaan u keenay oo aad iyo aad u mahadsan tahay tii dooxana waan idinka sheekeeyey markaa dulmigana la iska ilaaliyo walaalayaal intaasaan caawa doonaya inaan insha allahu tacaala xalqadii noo ahaato aan kusoo afmeero habeenka axadna aniga idin sheegay kolley waxaan soo geli doonaa barnaamij life aan kaga hadlayno seti zaytuun waxay tarto ay u tarto basharadda iyo wejiga iyo timaha iyo inta goor ee qur-aanka lagu xusay zayti zaytuun iyo fawaa'id ay leedahay u leedahay basharadda hablaha igu xidhan ila soo xidhiidhaya walaalo iyaguna u baahan habeenkaa ka faa'iidin timaha waxyaabaha timaha daadiya ka joojiya inaan usoo bandhigo fitaminaa jira xitaa kemiska laga iibsado oo maxay tahay timaha iyo ciddiyahaba ku bixinaya oo iska lacag jabana intaanad iibsan waxaad tegaysaa dhakhtarkaaga dhiiggaaga deegaysaa dhakhtarkana u geynaysaa ad oranaysaa kiniinkaasaan raba inaan qaato oo timihiiba iga daadanaya dhiiggayga mala shaqaynaya iska soo iibsan iska cun kuma fiicna taasna waa taas marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan doonaya walaalayaal arrintan ka faa'iidaysta wallaahi alcadiim baa kuli habeen maalin walba qofaa lasii wadaa mar allaaliya marka qofkaa la qaado u dhinto la aasana alla hiblaayo fiicnayd ah ma inantii oo kalaa jirta ma amaal oo kalaa jirta maba dhicine mayba dhalane alla gabadhu wala markaad dhibatid kuma baahna inaad ka sheegtid shar ama khayr lana already khalaas waa la xisaabay halkay tegaysa nafteedu waa la ogaaday khalaas ilaahay subxaana watacaala meeshu naftaa u gelinaya wuu garanaya yaa maljanna yaa mannaar marka adiga kaagama baahna ammaan qofku waxaa la ammaana markuu nool yaha la ammaana wax loo sheega leeda waryaa inaad artay inan fiican bahe inaad artida inan fiican bahe eedadii qofka fiican oo markay nooshahay uu qofka ku maqlayo baa qofka loo sheega ammaanta laakiin markuu kaa tago oo ama uu dhinto uu ajalkiisu yimaado ammaankaagama baahno he doesn't need you because already khalaas isaga tiis adugu is ammaano adugu taada la yaab isagu waa khalaas qof dhinta uu tegey intaasaan kusoo gabagabeynaya insha allahu tacaala caawa hablihii la soo hadlay aad baan u salaamaya canab cuud saaxiibadeeda qaaliga aad baan u salaamaya salaadan meel ku kalahaya caawinan ku dheeraada ma doonayo canab cuud waa gabar soomaaliyeed oo barnaamijyadeeda aad gabaya fiican kasoo jeedisay waxyaaba badan runtaana mar walba ka gabada oo marxalad cod buu ilaahay siiye qofka markuu ilaahay haybad siiye yacni dadka gabya iskama anu yacni qofka shaki buu leeyahy qof walba qaab buu leeyahy kusoo baxo wax ku sameeyo laakiin haddii lahado qaab aan aniga igu soo baxayn waan samaynayaa foolxunta canab cuud la xidhiidha telefoonkeeda qofkii doonay anuu weydiinaya baraambur bay samaysaa way haystaa everything you need anaa haya insha allahu tacaala idinkana aad baa idinku mahadcelinta walaal soo qoraysa kumankoodna waa wada mahadsantiin dhammayntiinba intay daawanaysa waan mahadcelinayaa waa anigu amaalkaysaa mar walba idin jecel oo idinla socodsiiya waxyaabaha aan isleeya oo muhiim iyo aan sida bulshada ka faa'iida soomaaliyeed intan insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala markaa qabtama soo daaya oon qabanaya inaan xidhan doonaya halo asalaamu calaykum وعليكم السلام. aad baan kusoo dhaweynaya walaal maxaani magacaa الله يسلمك حبيبتي أم عبد الله. أم عبد الله. لما المركب هو الرئيس وسلامينا. الله يعزك ما شاء الله تبارك الله. هاي برنامج هذا كنت حنا مر والبا. صحة ولا على خير الله كسي حبيبتي معانا أم عبد الله. وقت قاعد نسيني في الخلص بدل محل هاي وكانوا مدعينينا. الله يعزك حبيبتي الله يعزك شكرا. وريت أنت وقت كل يوم يكون صفر برنامج كل خير اسمع زميلة الله. كصومالي ما شاء الله تبارك الله وحياه. الله يعزك ولا صومالي واسكم مساكين لكن حقيني لهينا تصل إن شاء الله بإذن الكريم. قد نرفع على المخ. صح ولا على. ما يا حبيبتي جزاك الله محاوي وحن كلنا ما فقط كما قارئنا ما تكيسك. تطلع يعني القرن كودي وجدوني. marka akhlaaq badan aan naga dhintay dhaqamada sida ugu imaanay hada awoodda xasadka waxyaabo badan oo waqti dhumsa صح
insha allah saad u aragtaa cabdallahi qof walaalkiis ulahay maqashiin yuu maqlin dhibtayda ama wanaagayga oo ku farxayo ama ka xumaanayo dadkii isu dhowaa walaalo ee close family-ga ahaa ee isku cawal ka soo wada baxay ilmaadeernimo noqday eedoo ha noqoto ilmaabti ha noqoto habarwadaag ha noqoto maxaa dadkii isku dira walaalo isu dhowaa oo waddankan qurbaha loogu yimi arrintan foosha xun leh wallahi baa aniga mar yani waa 15 sano ka hor ah waan dhahay gabar walaashay baan keenayaa gabar waa igu tiri gabdho walaala ah gabar baan keenay ima salaanto ee xakeydii walaashaa waan ku qosle subxaan allah waan la yaabay markaas laakiin xaqiiqadii markaan ogaaday ama ay way dhacdaa wax walba dadkeeda ma garta sax waddankan qurbaha uu iska dibbadan yahay stress uu leeyahay qof walba walaalkaa asoo dhan inuu ku xumeeyo waxaa laga yaabaa inaa hadal isla gaftaan ama aad wax yani isku khilaaftaan sax marka kalsooni iyo ruux walba wuxuu gaarsiisan yahay wax walba waan haystaa gurigeydan ku filanahay kibir iyo dhaqan xumi iyo waxyaaba aanan garanaynin inaan lagu soo siyaado ma garata nacam marka dhaqanka soomaalida dhaqan fiican uu ahaa dad walaalkiisa jecel dad walaalkiisa wax siiyo dad maxay ahayd tolintaad wax abi lahayd walaalkaa u shubka oo wanaag iyo tarbiyad fiican ku hagaagsanaa aan ahayn laakiin qurbaha waa ay dhibaatada sax marka waxaa loogu bixi karaa in la sabro oo dhinaca diintana silaturrixim laga raadiyo sax oo ruux walban oo kaladkiisa u kirto fiiran admit waxa aad samayso haddaan admitin aad ku sameynin oo qiranin dhibkaaga weligaa ma hormaraysid sax nacam marka familigii ma aha un walaal ma aha un saaxiib ma aha un guri wax walbaa naga burbursan qurbaha aad iyo everything from caruurtii from guurkii from meel walba haddaan taabana de waan wada qaldannaha soomaaliya idin dadkii soomaaliya joogay afrika joogana waxay ku leeyihin yurubba maxaanu ka soo imanaynaa maadaama dadkiiba waxaa soo cabashaa iyo waxaasoo rafaada ay ku haystaan yurub maxaa yurub yaalla xumaanteenna aad u badatay inta xunna way dheeraysaa doogo uma cabdallahi xumaantu aad bay u dheeraysaa wanaagga lama sheego ha wanaagga lama sheego xumaanta aad loo sheego qofka haddaad maanta wax ku dhacay iminka waxay u dhacaan ilaahay ma keena subxaana watacala ummadda nama keena muslimiintahay xumaanteed baa la raadinaya alla maalmata ku dhacday waa maqashaa wax fiican haddii ugu soo kordhaana waa la qarinaya kaatim baa la noqonaya kaatim cala alxaq xasadkaas aad ugu badbaadi karaa marka ugu horreyso macal qalbigaaga adigaa hataa ku baraayo ruuxa wanaagsan hataa saameyn baad ku yeelanaysaa waxay kugu yeelanaysaa markuu ruuxan marka wax kugu dhacaanba aad ka dareemaysid qofaan garab ku siinin ama waqti aan ku mugeyn ama si xun kula hadlo ama dhaqama xun aad kala kulantid marka waxaa waaye waxa ugu horreeyo inaan yani qur'aanka ka akrisano mirabilfalaq inaad yani adiga hataa iska doortid su ilaahay isha wadana kaaga qabto taadina ee qof kale wax gaarsiin صح ما شاء الله تبارك الله آد يا آد والله وهذا الآد يا آد آد بنكو سلام صح بالمال بنصفر بالآد آد أنا كنت آمين ولا أم عبد الله يخليك يا أم عبد الله ويعيش الله يكتب من أمثالك وإلهي أضوك لها نوبضي إن شاء الله بإذن الكريم ولا جزاك الله خير وياك حبيبتي مع ألف سلامة حبيبتي aad baan ugu mahadcelinayaa ma cabdallahi ilaahay ha barakay miisaan xasanaadkeeda ha saarato ugu fiican acla darajaada ka dhigo insha allah biidni alkariim waayo kelmad tayba sadaqa qofka hadduu kelmad fiican sheego waa sadaqad maaha sadaqadu lacagunkeena waa sadaqada kelmad tayba sadaqa aad baa idin salaamaya walaalo aroorta meel baan u kalahayaa salaada insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baraya ummadda soomaaliyeed ee laa ilaaha illa allah maxamedu rasuulullah ku ashahaadata meel kasta dunida joogto inuu ilaahay dhibaatada inaga saaro tafaraariqa inaga saaro dhibaatadan ina haysateena daashatee inaga saaro noloshan yaray ku jirtay ruuxan yaray bini aadam inaku jirkeenan iyo ruuxan ugu jira naftan hortan sheegana waa naf wax yaro calaq wax yar weeyaan candhufka fudud ruuxan arkayna waa qolof naftaada kugu jirta ruuxa kugu jira dayibka ee ilaahay subxaana watacaala hadad kaaga dhigay inaad ilaashatid waa wax muqadasa laba cisho iyo maalin iyo wax walba waqti walba kugu noqotay walaalkaaga muslimka inaad caawiso waa wax muqadasa familigaaga inaad ka warayso wax muqadasa dadka isu dhow raxamka inayna goynay saas ugu ahaadaan waa wax muqadasa wax dhacay waa hore iyo wax dhacay sanad hore iyo wax dhacay beri hore anigu wallahi shalay wixii dhacay ma xasuusto sadaquni akhwaani markaa saasaa fiican la ilaaho qalbiga laga dhiga clean laakiin waxbaa beri dhacay wax waa ficil tegey waa ficil khalaas raax is gone pass oo wax tegey waxaan u baahnaa wax xaadira يعني وحيابها كنت كهذا في عنهم اسكو قرنا ولا ليال إلهي وحن كبر إذن كان دمان خير قفل بمشو كده باتين لهي دباتات كسارة حبين كأحد إن شاء الله تعالى ونهب الله نصوغ للسبن أقولك إن شاء الله تعالى
saasaan kusoo gabagabeynaya caawa aad baan ugu mahadcelinaya hablihii ila soo hadlay iyo inta idaawanaysa ku jirta facebookgayga iyo inta kumanka qoraysa waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo walaalo waanu amaalkaysaa idin jecel waxaan leeyahay sidaa iyo habeen wacan wanaagsan maca salaama